بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسلسلة دي مانديق كوربا كحرا صومالي يوردن أيانا إسكالي أنا أحمد نور محمد عبد الله أنا وأنا نيدا الدهين إياه آديات وحان ستو صولها الله يا جامع سياد وردن ميل كستوي جوغان أوه الرئيو جراد إسماعيل طلابة أتكا قادين raggii jaamac siyaad ee uu horseedka u ahaa ninka aan isla garanayno ina cambaashe sidaas aan ugu bogaadinay jaamac siyaad oo dhan tallaabada ay qaadeen nimanka la yiraahdo habar awal reer isxaaq ha ka qabteen godka uu ku ridaayo muuse biixi cabdi soomaalidu waxay tiraahdaa geedaha siday isu dhow yihiin ayay isugu xoqdaan shalayto carruurtiinnii baad ka qaylinaysay war carruurta noo soo celi baad lahaydeen sidaad u tidhaahdeen war keen qoortaada dheh gacanta soo qabta ka fariisiya reer isxaaq oo dhan buu ninkaanu baabi'inayaa ilaahay kama dhige xasan sheekh maxamuud tallaabooyinka uu ku diiday hadalladii ay yidhaahdeen imaaraadka baga ha ka yeelin ciidamadaadana yaree hadday ku yidhaahdaan haddii ay yidhaahdaan ciidamada annagu saan u tababarro ayay u shaqaynayaanna ha ka yeelin soomaali baa tahay madaxa kor u qaad isla markaasna dadka aad ka soo jeedo abgaal cismaan waa dad qiimo iyo darajo iyo haybad iyo hanaan ummadda ku dhex leh arrin weyn baad huwan tahay marka waxgaradka rag iyo dumar ummadda soomaaliyeed gudo iyo dibad madaxweynaad u tahay kulligood waa inaad marka garashadayada aragtidayada xisaabtankayaga siday u dhacayso waa inaad kuwa ka fiican keentaa kuwa ka wanaagsan keentaa qiime aad lahaataa imaaraadkana horaan kuugu sheegnay suudaan waxa ka dhacaya waad aragtay libiya waxa ka dhacaya horaad u aragtay suuriya waxa ka dhacaya horaad u aragtay ciraaq waxa ka dhacay horaad u aragtay waxaasoo dhan carabo ayada ayaa lugaha isgoynaysa carabo ayagaan waxba isu ogolayn carabta waa ilmo carruura camal waa la adeegsadaa sidii la rabaa la yeelaa ka leexo nin soomaaliya tahay aragtidayada fikradayada dareenkayaga iyo sidaan u qaadanay diinta islaamka oo aan adduunka oo dhan ka duwannahay waxaan nahay qolada keliya ee aan jeedal iyo seeftoona iyo ultoona aan ku soo islaamin ee toos sidii abubakar uu u qaatay oo u aaminay markiiba magacaas loogu bixigay abubakar sadiiq markiiba annagu aan u qaadanay marka marnaba ha ka yeelin ciidamadana saan kuu sheegay mushaarkooda wada sug hays wada la ekaadeen sidaas ayaan kuu sheegayaa qodobka kale dadka soomaaliyeed oo uu turkiga ku nool rag iyo dumar meel kastoy joogaan iyo nin kasta oo soomaaliya adduunyada meel kastaba ha ka joogee u gudbiya reer turki ha doorteen Erdogan ninka wanaagsan ninka fiican ninka dalkiisa u fiican ninka horumarka wada weligeed waa la cirib gooyaa sidii loo cirib gooyey maxamed cabdullaahi farmaajo caalamkii oo dhan ee shisheeye ayaa ka hor yimid waayo dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo duunyada soomaaliyeed iyo diinta soomaaliyeed intaasoo dhan uu kor u qaadayey maxaad kor ugu qaadaysaa baa la yidhi ciidamadana maba la rabinba inuu dhiso asla waa uu ka diiday wax walba waa samaysanaynaa buu yidhi waana ku ammaanayaa xasan sheekh maxamuud hadda wuxuu qodobkaa ku daysaday
maxamed cabdullaahi farmaajo ku daysaday oo yidhi annaga lugta nagama xiraysaan war xasan sheekh maxamuud sharcigu labuu u kala baxaa midna waa national waa qaran oo gudahaaga ayaad isku maamulaysaa midna waa international waa mid caalami ah oo waxaa lagala qayb galaa jaamacadda jamciyadda quruumaha madoobay yaa lala dhex fadhiyaa oo laysku maamulaa marka dalkeenna horumarkiisa dhismihiisa qaabkiisa shuruucdiisa nidaamkiisa dhaqankiisa hiddihiisa iyo wax allaale waxa ummaddaasi ay ayagu masiirkooda taabanaya cid kala hadli ka dhamma laha annagaa iskale ha ku gasho fahan dhuux udunun ha noqonin nin dhagaha wax ku qaato wax loo sheega kolbox ha noqon xasan sheekh maxamuud marka hadalkayga hore loo sii wataa Erdogan waa uu hormariyey aad iyo aad buu u hormariyey dadka Turkiga ummaduna way jeceshahay reer Turkiya oo dhan rag iyo dumar ha lagu soo celiyo cadowgii oo dhan baa qaylinaya ma ay rabaan in lagu soo celiyo xilka ha lagu soo celiyo ha lagu soo celiyo ha lagu soo celiyo u gudbiyo waa u gudbi kartaane haddii ilaahay yiraahdo Soomaali galbeed waxaan leeyahay ciidamada saan horeba u sheegay ciidamada yaan la baabiinin war waa xiniyihiinnii ciidamada yaan la baabiinin war waa awooddiinnii ciidamada yaan la baabiinin war waa xushmaddiinnii ciidamada yaan la baabiinin war waa kuwaad ku jiibsan lahaydeen haddii kale walwal baad habeenkii ku seexanaysaan goorbaa laydii soo dhacaya goorbaa laydii imaanaya waxaasaad ku seexanaysaan isla markiina gabdhaheennu waxa ay noqonayaan dhulyaal eber bay noqonayaan waayo butuq baa lagu qabanaya nayaaba saas yeeluun baa laleeyahay bes yaa ka celinayay yaa hor istaagnaa waad ogeydeen gabdhihii reer gadood intaan ciidamadu kicin intaan ciidamadu soo istaagin kenyaatigu siday rabaan bay gabdhaha ka yeelayeen markii dambana maxaa dhacay oo ciidamadii Soomaalida yimaadeen dabada laad in lagala dhaco wartanna waa la mid marnaba ha yeelinina hubka marnaba ha yeelinina mid kalena waa inii sheegayaa Mustafa Cagjar waxaa la rabaa walaalka ina adeerka in lagu dirdiro oo xabsiga la soo siidaayay Cabdiilay iyo adiga in la iska hor keeno arrimo saasa socda ha yeelinina midooba dhammaan Soomaalida isla joogta Soomaali galbeed laf kastaba ahaada qabiil kastaba ahaada mar haddaad Soomaali tihiin midooba meel la idinka soo gala male markaas midooba oo isku xirba ciidamadiinana marnaba yaa la baabi'inin haddii ciidamada la baabi'iyo ogaada maalintaas maxay noqotay koroyoy gabal ku dhac ahey digtoonaada marka waxaan kaloo u sheegayaa dadka waxgaradka ah waa hadda uu yahay Faarax Macallin Dawaara iyo Cabdiweli oo halkaa ka soo jeeda iyaga labaduba NFD iyo dhammaan waxgaradka soo maray dhammaan dowladnimada Soomaaliyeed in allaale intii soo martay oo uu ku jiro Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin Abiy Ahmed waa in la yiraahdaa faraha ka qaad maamulka waxa loo daleeyahay waa shidaalkeenna iyo khayraadkeenna iyo dadkeennu inaysan noqon dad dhulkooda ilaashan kara dhulkaa layna ka qaadayaa dhulkaa lala wareegayaa annagana markaan isku xirannahay oo saa isugu xirannahay cabsi baa gelaysa waayo shalayba Itoobiya waa jirtay allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre markuu afka ku dhufanayay welina waa noolahay afka ku dhufanaynaa runta u sheega Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhammaan wixii golo wasiiro
iyo ra'iisul wasaare iyo kulli waxaa soo maray iyo dadka reer NFD meel kastaba ka qayliya u sheega abey faraha ka qaad maamulkaas la dhaho waayo dhulka annaga iska leh dhulkan ma u lahaa ingiriis baa bixiyey baa la yiri waxbaa la qoray ingiriis waxba ma qori karo war yaa ilaahay aan ka cabsano annaga islaam baan nahay soomaali waa soomaali dhulka soomaali baa iska leh ilaahay baana siiyey talyaani aan qaybin karaynin ingiriis aan qaybin karaynin waxbaan la kala dhigan maxaa wax loo kala dhiganayaa muu dhulkiisa bixiyo ingiriisku maxuu dhulkeenna u bixinaya awalna edabdarru u soo galay war yaa waxgarta soomaaliya waxgarta waa waxaan u yidhi nairobi bahalkan NFD iyo soomaali galbeed waa anig yidhi doonya iyo maraakiiba soo qaateen ha ka luumaysteen waayo dhulkay leeyihiin xamar iyo jigjiga iima kala duwana aniga xamar iyo jigjiga iima kala duwana waayo soomaali baa labadaba leh sidaa u fekera sidaa wax u garta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah idin xafido